faahfaahin dheeraada ka soo baxayaan geeridii ku timid allaha u naxariistay almaas elman oo lagu toogtay gudaha xerada xalane warar dheeraad ah ayaa ka soo galabta magaalada muqdisho loogu geystay almaas elman axmed cali axmed oo ahayd diblomaasi hore iyo mid ka mid ah gabdhaha u ololeeya arrimaha haweenka ee ugu caansan Soomaaliya sida wararka hordhac ah ay sheegayaan waxay u geeriyootay dhaawac daran oo ka soo gaaray rasaas qaybaha sare ee jirka ugu dhacday taasoo aan weli la shaacin cidda soo riday iyo halka ay ka timid waxaana xilliga toogashada ay dhicaysa ay ku sugnayd gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho Siciid Fadaayo oo kamid ah suxufiyiinta u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah oo ay xilliga la tooganay wada socdeen marxuumada ayaa bartiisa Facebook ku soo daabacay geerida almaas elman isagoo qiray inuu weerarka ka badbaaday alxamdulillaah waa nabad qabaa kadib weerarna lagu soo qaaday anigii iyo walaashii almaas elman almaas dhabtayda ayay ku geeriyootay rabbi ha u naxariisto ayuu yiri Siciid Fadaaye laamaha ammaanka ee dawladda iyo kuwa shisheeye ayaa durba bilaabay baaritaanada halka ay ka timid rasaasta lagu dilay gabadhan dhalinyarada ahayd iyadoo ay durba shaki dhaliyeen ammaanka goobta ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah safaaradaha ugu waaweyn ee wadamada caalamka almaas elman axmed cali waxay ka soo mid ahayd howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya sanadihii u dambeeyay waxay u xubsiibatay dhanka ololaha u doodida xuquuqda haweenka waxaa dhalay marxuum elman cali axmed oo isagana magaalada muqdisho lagu dilay sanadkii 1996 isagoo ka shaqayn jiray arrimaha nabadda iyadoo ay walaalo yihiin ilwaad elman oo ka shaqaysa qaramada midoobay madaxna ka ah elman biis taasoo sanadkan 2019 ka mid ahayd shakhsiyaadkii u sharaxnaa ku guuleysiga abaalmarinta nabadda oo uu ku guuleystay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed cidda weerarka ka dambaysa haatan si toosa looma cadeyn iyadoo jawaabta ugu dambaysa ay soo saari doonaan laamaha ammaanka ee xerada xalane iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya hoostaga kuwaasoo jawaabta kama dambaysta ah bixin kara balse Siciid Fadaayo wuxuu shaaca ka qaaday in dilka almaas elman uu ku dhacay weerar sida uu bartiisa Facebook ku qoray dhanka kale Siciid Fadaayo ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii qoraalkan uu ku soo daawacay bartiisa Facebook si laamaha ammaanka ay faahfaahin dheeraad ugu weydiiyaan qaabku uu dilku dhacay si aad u hesho wararka xiga ee ku saabsan almaas fadlan subscribe channelkeena oo gambaleel